Genghis Khan hogaamiyey Tartaarku waxa uu ahaa mid ka mid ah hogaamiyaashii dilaaga ahaa ee ugu naxariista darnaa uguna arxanka darnaa uguna axmaqsanaa ee soo maray taariikhda dunida. Ruushka oo kaliya waxa uu ku dilay 1 milyan oo qof. China waxa uu ku dilay in ka badan 20 milyan oo qof. Dagaaladii uu ku qaaday Khuraashaan iyo Beershi waa Iiraan waxa uu ku dilay 10 milyan oo qof. Dhulalka Islaamkana magaalada Baghdad oo kaliya waxa uu ku dilay 1 milyan oo qof. Islaamkana xilligaas waxa uu ka dilay 4 milyan oo qof. Guud ahaan caalamka xilligaas waxa uu ka dilay in ka badan 40 milyan oo qof. Muslimiinta xilligaas joogtay waxay moodeen in la gaaray yoomul qiyaamihii Tartaarkuna ay yihiin Yaajuuj iyo Maajuuj. Dhulka la yiraahdo Mongolia una dhaxeeya China iyo Russia oo ay degnaayeen qabaa'ilo fara badan kuwaas oo isku oran jiray Mongol. Taariikhdu markii ay ahayd 1162 miilaadiga waxa ku dhashay dhulkaas wiil yar oo la yiraahdo Timuchin. Kadibna markii uu koray waxa uu mideeyay dhammaan qabaa'iladii Mongolka ahaa waxa uu la baxay magaca Genghis Khan isagoo diyaariyay ciidan weyn kuwaas oo caan ku ahaa qaadista weerarka degdega ah. waxayna ahaayeen ciidan lagu tababaray nolosha adag in ay ku noolaan karaan iyo duruuf kasta oo soo wajahda. waxaanu ciidankan u sameeyay hogaamiyaal askareed military janana ah dunidana caan ka noqday madaxyaalna ahaa sida Bato Bichi Holako Khan iyo kuwa kale fara badan. intaa kadibna waxa uu ku durkay China waxaanu jabiyay boqoradii Chinese-ka. China oo dhan waa uu qabsaday. China oo kaliya waxa uu ku dilay in ka badan 20 milyan oo qof. waxaanu ugu sii talaabay bariga ilaa iyo Kuuriya uu qabtay ilaa iyo Serbia. waxaana markaas samaystay dawlad aad u weyn isagana hoos timaada nidaam adagna ku shaqeysa. balse dhinaciisa kale waxaa jirta dawlad weyn, dawlad xoogan, dawladu Khawaarizmiya waxaana xukumayay boqor Maxamed ibn Khawaarizm Shah. dawladan ayaana xukumisay Afghanistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Tajikistan, Pakistan iyo qaybo kamid ah Iran. labadan dawladoodna waxa ka dhaxaysay in si nabad ah loo wada degnaado. xilligaas Genghis Khan waxa uu ku mashquulsanaa xasilinta dawladiisa iyo inuu ka takhaluso dhammaan indho yartaarsaneed. haddaba hal mar waxa dhacday waxa la filayn 500 oo nin kuwaas oo ahaa ganacsato Mongol ahaa ayaa ka soo degay magaalada Otrar oo ka tirsaneyd dawladda Khawaarizmiya si ay ganacsi ugu bilaabaan halkaas. waxayna la yimaadeen dahab fara badan iyo badeecooyin kala duwan. waxaana magaaladan xukumayay markaas nin la yiraahdo Inaas Hain. Inaas nimankii ganacsada ahaa marka ay ayaama joogeen magaaladiisa ayuu hal mar amray in dhammaantood la laayo, dahabka iyo xoolahana laga qaato lagana dhaco. waxaanu cudurdaar arinkan ugu dhigay in ay raggan ahaayeen jaajuus Mongol ah. haddaba warkan Genghis Khan markii uu soo gaaray waxa uu soo diray 3 nin oo kamid ahaa ciidankiisii. waxaanu u soo diray boqor Maxamed ibn Khawaarizm Shah oo uu ku yiri igu soo wareeji Inaas Hain iyo ciidankiisii si aan u mariyo ciqaab adag qoortana u wada jaro dhammaantood. boqor Maxamed waxa uu sameeyay markan inuu 3 nin laba kamid ah madaxa ka jaro, kii saddexaadna uu u soo celiyo Genghis Khan. Genghis Khan arinkan markii ay soo gaartay waxa uu soo dhaqaajiyay 150,000 oo askari Tartaar ah